أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعدي سلامي ميل والبا جوجتان waxaan idin leeyahay welcome back again to Ashraf Academic Online. waxayna soo daashiradeeni taana ahay maatan waxaan qaadan doonaa cashir aad u xiiso badan haddii ay maalintii kugu horeysay oo aad channelka soo booqatid waxaan ka codsanaynaa inaad saacadii subscribe gambaleelkana furatid soo ku soo gaaro cashir walba ayna soo gelino. maanta waxaan qaadan doonaa cashir aad u xiiso badan conversation wada sheekaysi ayaan qaadan doonaa conversation wada sheekaysi. Okay, AEB ayaa ka wada hadlayo ayaa hadalka bilaabay wuxuu leeyahay why did you choose me maxaad ii soo dooratay. Why did you choose me maxaad ii soo dooratay. Why did you choose me maxaad ii soo dooratay. B ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay because maxaa yeelay you are the best student waxaad tahay arday wanaagsan in the ardayga ugu wanaagsan ama ardayga ugu fiican in our class ee fasalkeena and you always mar waliba make waxaad samaysaa a good conversation wada sheekaysi wanaagsan because maxaa yeelay you are the best student waxaad tahay arday ugu fiican in our class ee fasalkeena and you always mar waliba make waxaad samaysaa a good conversation wada sheekaysi wanaagsan because maxaa yeelay you are the best student waxaad tahay arday wanaagsan ardayga ugu fiican in our class fasalkeena and you always mar waliba make waxaad samaysaa a good conversation wada sheekaysi wanaagsan. B ayaa qaadanaya wuxuu leeyahay okay ayuu leeyahay which one are you interested midkee ayaad xiisaysaa in quarrel muranka and quietness iyo aamusnaanta. Which one are you interested keeba ayaad xiisaysaa in quarrel muranka and quietness iyo aamusnaanta. midkee ayaad xiisaysaa ayuu leeyahay muranka iyo aamusnaanta. Okay, B ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay I am very much interested waxaan aad u xiiseeyaa in a calm conversation wada sheekaysiga degan because maxaa yeelay quarrel muranka has no any advantage muranku wax faa'iido ah ma lahayn. I am very interested waxaan aad u xiiseeyaa in calm conversation wada sheekaysiga degan because maxaa yeelay quarrel muranka has no any advantage wax faa'iido ah ma lahan. I am very interested waxaan aad u xiiseeyaa I am very interested in calm conversation waxaan aad u xiiseeyaa wada sheekaysiga degan because maxaa yeelay quarrel muranka has no advantage muranku wax faa'iido ah ma lahan. Okay, ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay all right hagaag what is the difference between waa maxay farqiga u dhaxeeya teacher and student macallin iyo arday farqiga u dhaxeeya maxaa waaye all right hagaag what is the difference between waa maxay farqiga u dhaxeeya teacher and student macallin iyo arday. B ayaa ka jawaabay wuxuu leeyahay teacher macallinka is someone waa qof who kaasoo teaches you ku bara something shay which shaygaasoo you don't know aadan garanaynin. aan ku soo celino teacher macallinka is someone waa qof who teaches you kaasoo ku bara something shay which shaygaasoo you don't know aadan garanaynin. An student ardaygana is someone waa qof who kaasoo learns baranayo something shay which shaygaasoo they does not know aanan garanaynin. The student ardayga is someone waa qof who learns kaasoo baranayo something shay which shaygaasoo he doesn't know aasna garanaynin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. intaas ayaa soo dalagalay waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysteen khayr badan iyo rajana inta casharka kulmin. Bye bye.